bismillaahir rahmaanir rahiim kulan waxaan daawadeelu ku soo dhawaada qodobada wararkooda ugu waaweyn anidaheena waxaa ka mid ah xasan sheekh oo qorshe dil ah ugu hanjabay xubnaha mucaaradka sheekh shariif oo la bartilmaameedsanayo xiisada muqdisho ka jirta madaxtooyada oo si weyn loo adkeeyay ammaankeeda Israa'iil la dilacsiiyay faahfaahin iyo macluumaad dheeraad ah ayaad ku daawan doontaan adooliyada balse saaxiibayaal waxay ka codsanayaa inaad subscribe sartaan channelka si aad u heshaan wararka iyo macluumaadka halkan aan soo gelino maasanidin dhammaantiin baa aynu ku bilowno waxaa banaanka u soo baxay qorshe ay diyaarisay dowladda uu hogaamiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo ah in dowladda federaalku ay diyaarisay qorshihii lagu dili lahaa xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradka xogta ayaa sheegaysa in dowladdu ay qorsheynayso inay bilowdo isla markaana ay weerar toos ah ku qaado qorshe lagu dilayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamadii dil lahaa Sheekh Shariif waxay geysay agaarka gurigiisa oo ku yaala xindaabka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho xogta ayaa si rasmi ah banaanka waxa uu keenay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo si adag uga hadlay siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladda federaalka ee uu hogaamiyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo ku eedeeyay inay caqabad ku yihiin dowladnimada iyo geedi socodka siyaasadeed ee dalka wasiirka ayaa sheegay in siyaasiyiinta mucaaradka aysan doonin dowladnimo dhab ah isla markaana markasta ay ka shaqeynayaan qalqalgelinta caasimadda dalka waxa uu sidoo kale uu sheegay in mucaaradku aysan doonin in dalka ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay balse ay adeegsanayaan arrimo kale oo uu ku tilmaamay marmarsiyo siyaasadeed sidoo kale waxa uu banaanka u keenay in markan xubnaha siyaasiyiinta ay dowladdu qorsheysay in si toos ah loo weeraro isla markaana la beegsado Fiqi ayaa sheegay in mucaaradku aysan awood u lahayn inay banaanbaxyo ay ka abaabulaan magaalada Muqdisho isagoo ku dooday in aysan jirin taageero shacab oo haystaan waxaa sidoo kale uu sheegay in mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka uu tagay degmada Kaaran gaar ahaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayuu ula jeeday balse aysan jirin dad u soo baxay taageerayaashooda sida isagoo hadal ku dhigay intuu hadalkiisa sii watay wasiirka gaashaandhigga waxa uu sheegay in dowladda aysan aqbali doonin kooxo hubeysan maleeshiyaad siyaasadeed oo lagu qalqalgelinayo amniga caasimadda magaalada Muqdisho wuxuu intaa ku daray in cid kasta oo isku dayda inay maleeshiyaad la soo gasho magaalada Muqdisho amni darro ay ka abuurto madaxa laga jibin doono sida isagoo hadal ku dhigay waxa uu si gaar ah u bartilmaameedsaday hogaamiyaha dowladda federaalka Soomaaliya ee hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed hadalka wasiirka gaashaandhigga ayaa durba dhaliyay hadalhayn xooggan xilli oo ay sii kordhayaan khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dowladda ku eedeynaya inay ku tumatay dastuurka hannaanka dimuqraadiyadda halka dowladduna ay ku doodo in mucaaradku ay carqaladeynayaan dowladnimada iyo diburiska hay'adaha dowladda hadalkii uu jeediyay wasiirka gaashaandhigga ayaa dhaliyay hadalhayn siyaasadeed iyo falcelin kala duwan oo laga muujiyay baraha bulshada iyo fagaarayaasha siyaasadda ee Soomaaliya waxaa sidoo kale soo taraya warar la xiriira abaabul siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga dareemayo magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan xaafadaha ay ku xoogan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka iyo goobaha muhiimka ee dowladda waxaana ka mid ah meelaha sida weyn dhaqdhaqaaqyada loogu dareemayo xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya iyadoona si weyn loo adkeeyay ammaanka waxaa sidoo kale xilka laga qaaday saraakiil ka shaqeynaysay madaxtooyada Soomaaliya iyadoona xusid ay mudan tahay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud saraakiishii ugu badnaa uu dilacsiiyay sidoo kale Xasan Sheekh ayaa diyaariyay qorshihii ugu badnaa ee lagu doonayo ciidan loogu talagalay in lagu weeraro xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradka kuwaasi dhaqaalihii ku bixi lahaa xilligan la diyaariyay isla markaana ay maalgelinayso dowladda Turkiga ee lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in siyaasiyiinta mucaaradka ay wadaan kulamo xasaasi ah oo ku saabsan sidii ay ugu jawaabi lahaayeen cadaadiska ugu imaanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo wararka qaar ay tilmaamayeen in xubnaha horey xilal ugu soo qabtay dalka ay qayb ka yihiin abaabulka xilligan socda dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay sare u qaaday heeganka ciidamada ammaanka iyadoo ciidamo dheeraad ah lagu arkayo wadooyinka muhiimka ee Muqdisho xarumaha dowladda gaarka xarumaha siyaasiyiinta ee mucaaradka xiisada siyaasadeed ee dalka ayaa haatan waxay maraysaa meel aad u xasaasi ah iyadoo shacabka Muqdisho ay si weyn uga cabsi qabaan in khilaafka siyaasadeed uu isku bedelo isku dhac amni oo halis gelin kara xasiloonida magaalada caasimadda ee Muqdisho dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in hadallada kulul ee ka soo baxaya madaxda dowladda federaalka iyo xubnaha mucaaradka ay sii horinayaan xaaladda xilligan cakiran ee ka jirta dalka isla markaana loo baahan yahay in si degdeg ah loo helo xal siyaasadeed oo lagu qaboojiyo xiisada sii kordhaysa waxaa sidoo kale jirta cabsi xooggan oo laga qabo banaanbaxyada lagu dhawaaqay inay sababi karaan isku dhac toos oo dhex mara ciidamada ammaanka iyo taageerayaasha mucaaradka iyo ilaaladooda maadaama labada dhinac ay muujiyeen mowqif adag oo aan tanaasul badan lahayn
khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka ayaa salka ku haya arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin hannaanka doorashooyinka, wax ka beddelka dastuurka, awood qaybsiga siyaasadeed iyo maamulka amniga ee caasimadda Muqdisho. xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa u muuqata mid gashay marxalad cusub oo adag, iyadoo indhaha shacabka iyo beesha caalamka ay si weyn ugu jeedaan waxaa dhici doona maalmaha soo aadan islamarkaana ka dhici doona magaalada caasimadda ee Muqdisho, maadaama dhinacyada markan ay isku gurbaantumanayaan hanjabaado culusna hawada ay isku marinayaan. markan xaaladdu ay gaartay in dhinacyada ay isugu hanjabaan in mid kale uu toogan doono. tilaabadan ayaa cabsi badan waxay ku abuurtay xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradka. durbana waxay bilaabeen in ay ka fiijignaadaan islamarkaana heegan sare ee galaan ciidankooda, kuwaasi oo lasoo warinayo in dhufaysyo cusub ay ka qoteen aagaarka guryaha ay ka degan yihiin magaalada caasimadda ee Muqdisho. walwal xoog leh ayaa markan soo wajahay xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradka, iyagoo ka cabsi qaba in Xasan Sheekh uu weerar toos ah ku soo qaado. xiisadan ayaa waxa ay sidoo kale ay saameyn xooggan ay ku yeelan kartaa marxaladda siyaasadeed oo xilligan uu maraya dalka, maadaama xubnaha mucaaradku iyaguna ay doonayaan inay ka hortagaan tilaabo kasta oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadayso. qorsii horeysay mucaaradka Soomaaliya ayaa sheegay in Xasan Sheekh uu diyaarsaday ciidamo cusub islamarkaana ay sheegeen in lagu caburinayo xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradka. waxay sidoo kale shaaca ka qaadeen in ciidankan loogu talagalay in lagu weeraro xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradka, iyagoona bixiyay xog ku saabsan in ciidamo lagu tababaray gobolada dhexe iyo guutooyin kale oo u xareysan madaxweyne Xasan Sheekh, islamarkaana uu doonayo inuu soo saaro si uu ugu adeegsado danihiisa siyaasadeed sida ay hadalku dhigeen. waxaa markan jawiga u muuqdaa in markan dhinacyadu ay si toos ah dagaal qaraar ugu dhex mari karo magaalada caasimadda ee Muqdisho, inkastoo dowladdu heegan culus ay ku jirto, iyadoona diyaarisay qorshihii ugu adkaa ee loogu hortagi lahaa dhaqdhaqaaqa xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradka. Xasan Sheekh hadduu ku weeraraya saldhigii hordhigley baa ugu tagta adoo hubaysan, maalinkaas ay madaxa ugu dhufto haddiiba maaragtayba wax lagu qabanayo, waayo adoo falgaranse ku jira xabadaad waxaad ku riday saldhigii iyo ciidanka. hal xabba laguma ridin. madaxweynaha New York baa wada joognay, warwadaha loo furo nimankaasay ku baxaan buu waa qaldameen. maanta halkan wuxuu la soo taagan yahay waa lay dilaya. nimankaas marka waxay rabaan inay justification ku samaystaan waxay tahay inay rabaan inay maleeshiyad adeegsadaan, ay leeyihiin waan isku difaacaya, anaga isku difaacin. Xasan Sheekh madaxweynaha soo weeraraya, dowladda soo weeraraysa, maleeshiyad aan isku difaacno reeraheena ayaan ilaalsanayna. haddaan u sheegaynaa wax idin soo weeraraya ma jiraan. ciidanka xoogga dalka wallahi nabad sugid walaa booliis haddii laydin soo weerarayo afxumadiina mar hore la qaban lahaa, haddii laydin soo weerarayo dhaqan xumadiina laga hortagi lahaa. cid idin soo weerarayso idin soo socoto ma jirto, laakiin maleeshiyad maalinkaa qaadatid gacmaha lagaa jebinayo. maleeshiyad haddaad isku daydid inaad adeegsatid oo xaafadaha aad tiraahid reer hebelahay oo aad noo celisay sagaashamaadkii iyo warloriskii iyo qabqablayaashii, gacmaha la iska jebinaya. adaa u yeeranaysa marka albaabka waxaad garaacaysaa, albaabka dowladdaa soo garaacaysa, albaabka ciidanka adaa garaacaysa. maalinkaad maleeshiyaad isku daydid inaad adeegsatid hadda qaabkay u socdaanna ah. guud ahaan daawadayaal warkii aad ka daawanaysaan janalka waa naga taas. amaan allah.